wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi oo maanta kula hadlay warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa sheegay in 72 saacadood ee la soo dhaafay la shaybaaray 110 qof oo ku sugan gudaha magaalada Hargeysa iyadoo laga helay xanuunka safarka ee COVID-19 730 qof oo kamid ah dadkaasi la shaybaaray waxa sidoo kale wasiirku sheegay in xanuunkaasi ay u gooriyoodeen saddex qof taasi oo tirada dadka u dilay xanuunkaasi gudaha Soomaaliland ka dhigaysa 14 qof saddexda cishe la dhaafay dadka laga qaaday xanuunka laga tijaabiyo 110 qof oo dhamaantood magaalada Hargeysa ku sugan sababtoo ah inta kale inaan hadba tirooyinka marna dhameeyno caasimadda marna gobolada aan hormar israacino dadka marka la eego waxa xanuunka laga helay 730 qof oo macnaheedu tahay boqolkiiba 430 qof ayaa xanuunka laga helay laakiin ilama aha inay tahay maalintii ugu badnayd tir ahaan inta laga qaaday taska badan haddii dib u raacnaan isteedkii bisha May 40 qof oo xanuunka ka eegnay waxa laga helay 12 qof oo macnaheedu ahayd boqolkiiba 45 marka isku ururinta waa tiro badan laakiin marka laga hadlayo maalinlaha waa laga badan yahay waxa jira dhimashada waa 3 qof laba qof oo kamid ah ayaa kamid ah 17 qofna waxa weey dadkii hore ku jiray isbitaalka Daryeel waxa kale oo jira dadka 3 qof ee dhintay waxa ku jira qof da'yar oo 24 jir arintaas oo muujinaysa xanuunku inaanu kaliya ku ekeen dhimashadiisa dadka waaweyn laakiin dadka yarna ay ku dhici karto kul arintaas waxa u baahan tahay taxadir dheeraad ah dadkeena marka la eego 175 wax ku dhow ayaa ka yar da'da 5 jirka ah horta mishiimadu way shaqeynayaan oo awal dad dadkiin maalinta waxa soo saari jiray 40 marka suuqaysa 123 ma suuqayna ma aha ma u shaqeynaa dadka mishiinadu waa mishiin casri ah mishiin casri ah oo farsamada u dambeysay way wuxuu u baahan yahay inaga dadka ku shaqeyn lahaa ay farsamadii helaan oo bartaan soo kala aynu hubino in uu yahay mishiin aynu joogteen karno hay'adaha qalabka ku shaqeynayo waxa loo tirin gaadiya dib ugu noqdo mishiinka noo shaqeeyay waxay naga caawiyeen wariyo jiro iyada keenta cidda xataa ku shaqeysay farsamada u gudbinaysa shaqaalaha caafimaadka marka ila shaqaalaha caafimaadka farsamada ay helaan oo iyagu ay hawshaas gacanta ku qabtaan xataa waxa weeye qorshaha in gobolada la geeyo waxay noqonaysaa mid u baahan in aad qaadato talaabooyin ka horeeya oo badan baa jira laakiin mishiinkaasi uu yaala waa mishiin muhiim ah burcun haddaan xataa la odhanin in gobolka ku shaqeeya hawshin muddo soo wada waxa laga yaabaa Dr. Ismaaciil waqtigiisu gudbuu soo wada DB waa soo wada laba wax soo wada Taiwan dawladda keenta Taiwan intaas waa qorshe naga baahan